بسم الله الرحمن الرحيم وردك دقا تلفزيون كهون كيبل تي في وتلفزيون هذا قوة وين دقا نذا صومالي دا أي سيدا نحدحات كوشقية مركز تا ورن هو من سوداء تلفزيون كيسوق كل حجرة هولمات كيسي أيا متكمل الشقالة تلفزيون كان معنا أحمد دقال أو إمك يلف الدية وصعدان الشقة كتجي قبل كقبيلة جمهورية الصومالي لان معنا يسوق الشقة دي كل حجرة وبرنامج صوت دوبي أيا دحضة وحاو قالي niman ku xabaabulan oo nooc naftu u geystay nimcaan sidoo kale waxay ku khasbeen cajaladii uu soo duubay la keeno bar waxa soo faahfaahin nimcaan baan ku wareejin doonaa nimcaan Axmed Dagaal sidee wuxuu dhacay walaal bismillaahir rahmaanir rahiim xamsi aad iyo aad baad mahadsan tahay horta wax kasto dhacaaba qadar buu ku dhacaa waxay dhaceen waxay ahayd anuu shaqadaydii markaan soo dhameystay sagaalkii barkii habeenimo ayaan ka soo baxay magaalada Gabiley abaar 10kii markay ahayd ayaan soo gaaray kontaroorka Gabiley magaalada Gabiley xaq looga soo baxo xaga bare Hargeysa ku soo socdayna ayaan soo gaaray halkaas oo ay ku sugnaayeen koox haduu markaad aragtay haduu maleynayay inay yihiin burcad laakiinse ahaan ka tirsan xisbiga maxaafidka ee kulmiye oo ugu horeeyay xogayaha gobolka Gabiley Mr. Cabdi Xaashi oo ciidanka hogaaminayay isla markii la joojiyay kontaroorka ayaan leerka shiday gaariga kadib muraayadana waan dejiyay isla markaa gaarigayga gudaha waxa soo galay 3 nin baa soo galay mid xagga hore soo koray labana xagga dambe soo koreen kadib maxaa dhacay baan ku yiri waxay yiraahdeen waxaan doonaynaa canjiradan hadseetay barnaamijkan soo duubtay in aanu kala wareegno oo ku ah bay yiraahdeen siday ugu hadalka u dhigeen Samcadlis gobolkaasi ana taa waxaan kaga jawaabay markaan arkay cududoodii iyo soo hubaysnaayeen yaaban anu isma waalin ayaan u fudeeyay ku yiri hawshiina taadooda talba idin yeelaya magaalada dib loogu celiya halka waxa xusud mudan ciidanka kontaroolka checkpointiga joogay kontaroolkaasi joogay waxaan isniri iyo waxa ay lahaayeen ba way maqlayeen wayna garab taagnaayeen balse ayagu wax hawlo ay ka fuliyeen haba yaraatay ma jirin ciidankii kontaroolka jooga booliska maqlayeen booliska hawayna maqlayeen laakiinse wax hawlo ay ka fuliyeen ma jirin kadib xagga magaalada iskula soo noqonay isla markaana xeelada sameeyay oo ahayd aan ku badbaadsanayay canjiradeyda iyo shaqadayda aan ku badbaadinayay ayaan maskaxdayda ka keenay xeeladii taasi wax ku dheeran maayo ayadoo ii suura gashay laakiinse waxaan la halmaami karin oo xusud mudan in mas'uuliyiinta shirkadda Sam Cable ee wakiilka khaaska ah ka ah Maxamed Saciid qaar kamid ah sida Cali Nuur oo ganacsada caan oo laga wada yaqaan Gabiley taleefanka uu ka hadlayay oo lahaana ninkaasi si kasto aad ku qasabtaanba canjilada ayuu kala tagin kana qaada waan gartay taasi oo isagana siday nimanka kale ka dareemay ahayd taleefankiisaas oo ku sii xidhnaa taleefanka maamulahaasi shirkadda Sam Cable Maxamed Saciid ay ku soo xidhnayd isla markaasina hawshaas ay u socotay xitaa hadii ay lacag noqoto lacag nagu baayactamo lacagta siiya canjiradana ka qaada horta ilaahay baa mahad leh waxbay gabay soo gaarin anuu khibradii iyo maskaxdaan isticmaalay waan ku guuleystay canjiradii iyo qalabkayga soo badbaadsaday ayagina waxaan kula heshiiyay magaalada Hargeysa inaan iskugu nimaadno magaalada Hargeysa markaan soo galayna day wuxuu ayagoon ka soo farabaxayba hawshina sidii baan TV-ga ku soo gudbiyay laakiin hal mid waan yaanu sheegayaa ninku hadduu ganacsado yahay uma baahna in uu burcad noqdo waqti nimcaan wax xusud mudan daawadayaashu si toos ah inoo daawanayaan shaqalaha telefishinka Home Cable TV wariyaashiisu midna ma qaato musuqmaasuq bar ma qaato shaqadu qabto cid ka biibiyo waxa xusud mudan in Nimcaan Axmed Dagaal ka mid yahay sawir qaadayaasha ugu daacadsan marka wax soo daawadayaasheeda in shaqo kasta iyo goob kasta iyo cid kasta hanjabta aan ugu abayeelin wararkayga iyo barnaamijyada si wadano nimcaan dib aan dadka u xasuusiyo nimanku niman noocay ahaayeen
hubbay ku hubaysnaayeen hanjabada noocay lahaayeen adoo ii sheegay in xogiyaha xisbiga muxaafidka ee kulmiye dowladda cusub ee madaxweyne Axmed Maxamed Maxamuud Siinaayo gabiil u qaabilsan xisbigiisa muxaafidka uu yahay taasina waxaan filayaa de waa jawaab u taala xukuumadda iyo xisbiga muxaafidka kulmiye waxay tallaabo ka qaadi doonaan mas'uulka Nimcaan Axmed Dagaal oo ka tirsan telefishinka oo nin dhalinyaro ah inta u golay tuleedka magaalada gabiil oo galay ku khasbay inuu cajada ka qaado oo gaari ku afduubay Nimcaan bar dadka dib xasuusi magnuucahay والله nimankaasi markaad aad fiirisid wajiyadooda ama aad aragtid horta dhowr way wajidoobnaayeen ninkaasi Cabdi Xashaan ku leeyahay iyo labada nin ee kale koofiyad xidhnaayeen isagu laakiin koofiyad ma xidhneen isagu caadi isku kay tusay yaabay nimanku badnaayeen oo sidaas budcado ah wadooyinka galaya wixii mas'uul loogu dhiibto walibana xukuumadii ay mas'uul uga dhigato gobol dhan tani waxaan warkaabaa inay arqalad ay ku keeni doonto ayagoo dhibtaasna dhib ayaga u taala hay tahay fariintaan u dirayaan waxa weeyaan xukuumadda cusub niyo kaalintu Home Cable TV oo ka soo qaatay waqtiga ay ololaha kaga jireen ololaha ku lagu jiray way ogaayeen iyo intii dhib ahayd loo soo maray tani waxaan maleynayaa inay maanta ayaga laftooda ololihii ay isku qaadayaan bal waxaan leeyahay midaasi dib ha looga fiirsado waa tahay warka degdeg wuxuu ahaa Nimcaan Axmed Dagaal oo soo qaada ka tirsan telefishinka madaxa banaan Home Cable TV oo muddo ku dhow 10 saacadood xoriyadiisa koox hubaysan oo afka duuban ay magaalada Gabiil u diideen inuu ka soo baxo Nimcaan waqtiga wuxuu ku dhex jiray hawl maalmeedkiisa shaqo isagoo barnaamij ka soo duubay magaalada Gabiil barnaamijka aan dadka si toos ah ugu sheego barnaamijkaas wuxuu ahaa barnaamij lagu taageerayay shirkadda Dalcom oo kamid ah shirkadda Fiber Optical ama isgaarsiinta badda ee casriga oo dadweynaha reer Gabiil si weyn u taageereen barnaamijkaas Nimcaan lagu hajabay inaanu TV-ga KMTV-ku waa dhexdhexaad cid kasta u dhexdhexaad dadka Soomaalida ku hadlayaan xamso halkan ka yar dhaxgalo waliba waxa xusid mudan shirkadda Sam Cable oo taasi oo Dalcom shirkad ku kaxsan in ayada hay tahay barnaamijyada si toos ah uga baxaan telefishinkan aan joognay Home Cable TV intaan waxa ku dhamaaday warkii degdega ah saxaafadu waa mid madax banaan xoriyad telefishinku Home Cable TV waa mid xoriyad ku faana markasta iyo goob kasta waxaan diyaar ugu nahay wixii dhacday soo kordha dulqaadku waa xagayga assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh adigu wareejiyo baahinteeda kale